madaxweynaha wuxuu ballan qaaday 4 sano ka hor in doorashadu ay noqon doonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalayna la qaban doono oo ahayd September 10keeda nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxaa loogu yeeray election dadban mana dhicin waqtigii loogu talagalay waqti loogu talagalay kaliya ma dhicine waxaa dib loo dhigay 5 jeer waxaa la qabtay October 30keeda dib baa looga dhacay November 30keeda dib baa looga dhacay December 28keeda dib baa looga dhacay haddana waxaa la wadaa in bishaan ay dhacdo runtii taasna mas'uuliyaddeeda isaga qaadaya hoggaanka qaadaya maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaado oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu bishaareeynayo waan leeyahay sanad wanaagsan sanadkan 2017 inuu noo noqdo sanad isbedel oo noo keena nabad iyo barwaaqo haduu ilaahay beesha caalamku dalkan horta waxa iska Soomaali taas horta ogaada mas'uuliyadiisana waxa qaadaya dadka la doorto xildhibaanaduna waxay matalaan shacabka Soomaaliyeed dawlad kasta oo la doorto waa khasab in caalamku ay la macaamilaan maxaa yeelay qof ma aha kaligiis meel ka soo baxay wuxuu matalaya 12 milyan oo qof caalamka marka beesha caalamka waxay rabaan ciidan qaran in la dhiso si ay ciidamadan 1 bilyan ka dollar uga baxa inay guriyooda u diraan waxay rabaan in Soomaaliya ay nabad noqoto oo dhalinyaradeeda iyo shacabkeedu ay maxaan ku raahdaa nolol iyo mustaqbal ay ku lahaadaan taasna waxaan hubaa anigu inaan isbedelkaas keeni karo musuqmaasuqu waa waxyaabaha ugu daran oo in dawladda la shaqeynayso saad ogtihiin waxa lagu yaqaanaa in dadka xuquuqdooda aan siiyo ay ugu horeeyaan shaqaalaha iyo ciidamada miisaaniyada aragtaan oo sanadla ah dawladdeedii yaa ugu horeysay wax sanadla ah anu intaan imaan ka hor dadku isma weydiin jirin mushahar laakiin hadda waxa la leeyahay 8 bilood baa maqan dadku waxay xisaabtamayaan taas waxay ka timid wixii aan bilownay